السلام عليكم daawade kusoo dhawaad video cusub channelka aad daawanaysa waa Showmaso channel haddii aad tahay qof ku xiran channelka insha Allah waxaan rajeynayaa videoga hore ama mawduuca videogan oo uu noqon doono xataa in aad ka wareegsid waayo waxaan rajeynayaa in aad soo daawatay videoga hore oo ahaa maartii midkan oo nagu sareeyo oo ah $40 maalin walba night magaciisa by network sidaad ogtahay videogan hore waxaan kaga soo hadalnay by network sida la isku diiwaan geliyo iyo maartay total qaabka app oo la soo dego iyo wadooyinka saxda ee markaas la maro fadlan haddii aad tahay qof channelka cusub inta aanan gudgalin videogan please waxaan kaa rajeynayaa inaad iga caawiso subscribe-ka haddii aad tahay qof subscribe hore u saarin please like iga caawi waayahay waxaan hor usii gali doonaa mawduuca videogan hore waxaan kaga soo hadlay sida la isku diiwaan geliyo iyo wadooyinka saxda la maro sida aad halkan ugu jeedaan notice waxay soo qoreen in by network la soo launch gareyn doono 2023 oo sanadkan soo marka haddii aad tahay qof appkan oo mobilka ugu jiro aad tahay please mar walbo waxaad hubisaa inuu active uu ku yahay halkaas mar walbo ku dhufo sida halkan oo ka muuqato waxaa isdiiwaan gelisay 27 qof 27 qof oo dhan maartay waxaa active ka oo kaliya 7 qof soo marka waxaan idinka codsanayaa inaad mar walbo aad dhahdaan active si uu coinkiina uu idinku mine gareysmo waayahay step ugu horeeya aan qaadayno waxay tahay meeshan oo ay ku qoran tahay minet info aad ku dhufanaysaa ama waxaad kaloo ku dhufi kartaa qaybta sare oo saddexda xariijina ku dhufo markii aad ku dhufatid halkan meesha oo home meesha kusoo xigta oo ay ku qoran tahay minet ayaad ku dhufanaysaa markii aad ku dhufatid waxaa kusoo baxayso page noocan oo kale soo marka waxaad sameynaysaa qaybtan oo ay ku qoran tahay minet checklist ku dhufo markii aad saas ugu dhuftid dan kadib waxaa kusoo baxayo maartii qaabkan oo kale step 1 wuxuu ku leeyahay complete ayuu ku leeyahay download by network maartii marka wuxuu leeyahay completed ayadoo saas ay tahay weli laakiin maartii waxaa naga maqan browserka soo marka meesha oo ay ku qoran tahay completed ku dhufo markii aad ku dhufatid kadib wuxuu ku leeyahay sign in by browser dan waxaa leedahay sign in meesha ku dhufo dan wuxuu kusoo qaadayaa maartii app store-ka sidaan jeclahay okay wuxuu kusoo qaadayaa play store-ka markii uu kugu soo qaado play store-ka waxaa la soo degaysaa application-kan oo ay ku qoran tahay by browser waayahay markii uu video markii macnaha ma jecel in uu dheeraado waxaan qabanayaa pause waayahay application-ka wuu isoo degay kadib halkan hadda waxaan furayaa tookadan meesha oo ay ku qoran tahay by browser markii aan saas u furo then wuxuu intaan qayb maartay chat by wallet by brainstorm maartay by marka waxaan ku furnay marka create wallet waayo hadda waxaan rabnaa inaan wallet oo aan sameysano Soomaan marka wuxuu ku siinayaa halkan magaciisi 24 maartay oo macna array ma fahanti soo marka 24taas array waa inaad meel ku save gareysataa ma fahanti soo marka haddii uu ka lumo wax alaal wixii meesha uu kugu jiro wallet-ka macna coin-ka uu ka lumay soo marka aniga hadda maartay ma aqaan wuxuu leeyahay makaalum leeyahay okay waxaan leeyahay meesha oo ay qoran tahay lost dhimale kadib waxaan leeyahay create a new wallet hadda marka waxaan leeyahay marka generate new wallet ayaan ku dhufanayaa kadib wuxuu kugu soo qorayaa shaashada 24 array ayuu kugu soo qorayaa 24kaas array please waa inaad copy gareysaa oo aad ku save gareysataa meel oo uusan ka lumeyn ma fahanti ku save gareyso waayahay copy aad leedahay dan kadib waxaa sameysaa meel alaal meeshaa jeceshahay maartay gasho waa fahanti Soomaan dan kadib waxaa leedahay use mise waxaad dhigi kartaa use fingerprint laakiin 24kaas oo maartay array waa laga baahan yahay waxa waaye maartay waa
muhiim waa ma fahanteen waa muhiim saa ula soco waayahay okay then waxaa le halkan waa send iyo maaragtay receive haddii oo maaragtay wallet lagu soo diraayo iyo maaragtay haddii kale haddii lagu soo diraayo waxaa leedahay receive kadib wuxuu ku siinayaa wallet address kan waxa waaye wallet addresskaaga ma fahantay wallet addresskaaga waaye saa ula soco ha iloobin mar walba waa wallet addresskaaga waaye haddii qof oo uu rabo inuu kugu soo diro coin wuxuu kugu soo diraya halkan qaybtan kale oo sendigaana waxa waaye maaragtay waa send waaye waa fahmi kartaa waayahay qaybtan waa dhameeyey dan hadda waxaan leeyahay hadda maaragtay confirm your wallet waa inaan dhahaa confirm walletkeyga waa inaan confirm gareeyaa inta wuxuu markii weydiinayaa 24 erey oo markaas la ii siiyey ayuu weydiinayaa marka waa inaan soo copy gareeyaa oo aan halkan ku paste gareeyaa waayahay waa confirm gareeyay ma fahantay wuxuu leeyahay enable fingerprint uu leeyahay waxaa le confirm aa leeyahay fingerprint waa mobileka macana caadi finger successfully enable fingerprint dan waxaa leeyahay hadda close ayaan leeyahay okay qaybta koowaad waa maray qaybta labaad waa maray qayb saddexaad waa maray qaybta afraad oo ah commit to lookup configuration iyo qaybta ugu dambeysa oo ah KYC maaragtay KYC application waxaa waaye sida passport iyo maaragtay waxyaabo noocaas oo kale ama okay hadhow ayaan ka hadli doonaa hadda waxaan ku dhufanayaa qaybtan waxaan leeyahay start markii aan dhaho start then maaragtay kor u soconayaa kadib waxaa leeyahay confirm aan leeyahay then wuxuu weydiinayaa turn on the configuration okay commit lookup kale successful updated okay kadib iska xir then back ayaa leedahay waxaan marnay step 1 ilaa iyo step 5 hadda marka waxaan rabnaa inaan marno qaybta ugu muhiimsan oo ah KYC waxa waaye waa inaad iska diiwaan gelisaa ma fahanti macnaha KYC waxaa laga wadaa waa inaad aad submit gareysaa maaragtay passport ama warqad dhalasho ama maaragtay wax walba oo laakiin ID card oo macna adiga magacaagana leh maaragtay sawirkaagan macnaha ku dhigan ma fahanti marka haddii oo aan fiirno qaybta walletka ah oo meesha oo ay ku qoran tahay sorry KYC buy markii aan ku dhufto waxba iima soo baxay halkan mid waxba iima soo baxay walaadina maadna wuxuu leeyahay login walaadina so marka wuxuu ku leeyahay halkan marka thank you for your interest in applying to buy KYC slot is not available at the time ay ku leeyahay xilligan macnaha available ma aha you will receive an invitation when one becomes available marka waxaa sameynaysaa marka laba wado ayaad ku apply gareyn kartaa KYC haddii aadan marin coinka oo kugu jira meesha maaragtay lama soo bixi kartid ma fahantay marka waa muhiim in aad KYC amartid marka laba wado step 1 waxa waaye waa inaad mar walba oo aad soo gasho halkan oo aad fiirsaa mar walba ma fahantay mar walba waayo badana available ma aha ma fahantay mar walba waa inaad soo gashaa oo aad fiirsaa oo aad soo noqotaa halkan maalintii aad 4 jeer waa inaad kusoo laabataa stepka labaad ee aad maraysta ayaa wuxuu yahay waxaad imaanaysaa maaragtay browserkaaga kadib waxaad u fiirsanaysaa meesha oo ay ku qoran tahay wallet.buy then .buy sorry aniga qaybtan maaragtay frisk ma gelinayo oo khadka waxaan gelinayaa magaciisii fingerprint maaragtay ayaan ku dhufanayaa then sidaas ayuu igu furmayaa walletkeyga haddii aan gudaha u galo then halkan waxaa ka muuqato 00 qaybtan kalena waxaa ku qoran maaragtay testnet oo ah waa coin oo iska been ah ma fahanti laakiin coinkii saxda hadda maaragtay halkan kuma soo wareegi karo waayo ilaa iyo hadda ma aanan sameynin maaragtay KYC so marka waxaa sameynaysaa qofka oo kugu dhow oo saaxiibkaaga ah ama maaragtay qofka markaas guriga uu kula joogo qofka uu kugu dhow ayaad waxaad leedahay maaragtay ayaad waxaa siinaysaa wallet addresska ayaa siinaysaa wallet addresska waa kana ama meesha ay ku qoran tahay receive ku dhufo markii aad u dhufatid kan copy garee ma fahanti qofkii rabo inuu kuu soo diro coin halkan ayuu
بالكن أيو استعماله ما فهمت معناه والد كا وكان ما فهمت واسيد كريبتو عادي كوب جرى كدب سي كدب معنا العقدة يصود ده ما فهمتي كدب مركو كو صادره كدب وحاسمينيسا وعلي ما فهمتي وعلي لأن كدب waxaad tagaysaa qaybta caadi KYC-ga ayaad tagaysaa kadib waxaa waaye ku celi ama waxaa laga yaabaa tookadii ugu horeysay in uu kuu shaqeeyo qaabkaas ayaad samaynaysaa waad fahantay aan filaa haddii aad qabtid su-aalo oo markaasi oo ama aadan fahmin please si maaragtay si gacmo furan waxaad iga soo xiriiri kartaa whatsappka insha allah wixii su-aalaha qabtid aniga ka caabi doono haatan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu